سيك بلاوي محمد علي قاسم waxaa jiray afgooyo fatahaad badan inay ka dhidi dhibaatooyin badan dadkii gaareen ilaa iyo 14 oo tuulooyin oo degmada hoos ku hayaan ay biyo ku fataheen ilaa iyo mareeray sabiid iyo anoole intana ilaa iyo jambuluul ay biyo fatahaad gaareen iyo balbalay iyo jaran dhamaan biyo gaareen marka degmada dhaxdiyeena buundada waxa la wada raacay laba gaari dameer la raacay hatta baawur ma guduhu karo biyaha ma xog dadkii rogaan dadkan reer afgooy dhibaatooyin badan qabaan waxaana ku codsanay hay'adaha caalamka hay'adaha qeyriga dawladda federaalka dawladda koonfur galbeed macal wasaaradooyinka kulli inay soo gargaaraan dadkan ka nool degmada afgooy maanta dhibaatada gaartay dhibaato hore aan soo gaartay ma waayo qoysaska barakaceen waxay dul saaran yihiin qoysaskii gadaashoo jiray oo meel doon saaranay ala qoys waxa uu kor saarnaa markii inka yarta 10 ruux 10 qoys 7 qoys kor saaran ala qoyskii marka culeyska meesha ka kor dareem kartaan dhanka caafimaadka dhibaatada kor dareem kartaan biyaha hadda roogsadoo ama ilaa hadda zaid in socdaan meel iyo hadda ka gaaban ma jiraan marka waxaan si ku codsanay in gargaar degdeg dadkan reer afgooy lala soo gaaro anagoo ah Ciise Maxamed Axmed Ciise Gabale degmada afgooy gaar ahaan xaafadda ifi aakhira degan fatahaadka wabiga Shabeelle oo ku soo fasahay degmada afgooy oo maanta hadduu Ilaahay ku roon yahay oo dad badan aad u barakaceen biyuhu ilaa lambar 50 iyo meelahaas ay sii marayaan dad badan cabdow dubile laga soo qaxay oo idimow laga soo qaxay oo macaadalaay oo buundada yariista laga qaxay oo biyahana bahalla ay wataan marka taas muslimiinta waxaan ugu dadaalaynaa yani inay gargaar ay soo fidiyaan dadka muslimiinta oo meeshaas ku barakacay anoo magaca oo degmada biyahan meesha laga saari karo dhulka yes meesha waa laga saari karaa hadii oo mataqaana oo macnaa oo maamul oo macnaa oo markaas oo garab oo ku siiyo oo ku helo waa laga saari karaa hadii Ilaahay dadka qurbo joogta Soomaaliyeed oo kale kaalin noocee ka qaadan karaan wallahi bila gargaar waa u fidin karaan dadka muslimiinta oo walaalahooda ah oo mataqaana oo biyahaas ku fatahaaday haduu Ilaahay yiraaho ayagana ajri ka helayaan magacayga Ibrahim Abdi Muumin waaye marka waan soo qaanay biyaha soo fatahay afgooye aan soo kaxanay beerihii oo biyi wada galay oo biyihii maara loo waayey oo la alig waayey biyihii oo tir batay ilaahay waxaan umadaynaa intaas maanta horta waxaan loo dhintay ma laha laakiinse qudaar wiil arkay galley hadhihin hal meher eber waay mal guryihii waxa maanta aan u naqayno meesha yaala ma jiro xaalad oo fiican ma ahayn saad humo oo dhooqada jibka loo soo moodayo biyihii ayaa lagu soo jiidayo biyo ahaantood baxla ku jiro baxlo ayaa ku jiro biyaha oo yahaas ahayn dad qaniinayo oo girgiiran ayaa ku jiro oo dhaawac lahayn oo ninkii qaniinaba hal duuga biyaha deegaanka horta biyo maanta maaro hala ilaaha maaro hela karo in biyo oo baaldoosar loo raadiyo oo wabiga meesha soo fatahayo in baaldoosar loo raadiyo oo baaldoosar in loo keeno meel kasta oo biyaha ka soo baxay in loo yeelo oo baaldoosar la artuuro meel yara jiraan oo la ogeen oo geedaha wabiga hoostooda biyaha ka soo baxo in la raadiyo oo loor la saaro oo yar oo baaldoosar gali karin in loo yeelo meel kale in baaldoosar loo raadiyo si fiican geedaha wabiga loo qaado oo ara in la saaro la xiro si biyo soo baxay ma si kale walba baad karo aniyoo li dhahayo maxamed sheekh waayel cumar berkaan oo ka soo kaxay biyaha fasahaada oo wabiga oo ka soo baxay mareerey sabiid beledul aamin aanoole raqayle intaas oo ku kooban wabigii fasahaada biyihiisii beerihii naga baabi'iyeen galleeda digirta sisinta leemadii oo hadda faraq ku haynin
meel badan oo naga baabiyeen macal caruurtaanya hadda la joogo qaar webiga qaadi qaar geed noo saaran yihiin qaar meel aan ku ogeen haddana biyihii ay noogu socdaan dhibkaasaan la kulugni oo haddaana webigii noo socdo wax naga reebaayo ilaaha naga reebi karee wax kale hadda jirin wax far aan ku haynin afgooye baawurkiisa waxaa loo soo raacaa wax gaari aan ku soo raacna male ilaa mareere iyo sabid iyo beldul aamin waa soo lugeeyey ilaa shalli ilaa daraato biyo dhexdiisaan ku jirnay wax raashin noo soo gurmahaya male wax oo nolol soo aadaya male go'toon xoog lehan ku jirnaa biyaha waana fasaadiyey cabdiyo dibil ilaa waay arag ilaa nambar 50 ilaa biyaha cadadadooda 20 kilometer ay xabadkooda socdaan biyaha waxaa loogu reebi karaa in baldoos loo helo baalooshin loo helo dhulka markuu qalalo sidaasaa loogu reeli karaa hay'adda degdeg gargaar inay noo keentaan ka codsaynaa biyahaasna sidii nooga tali lahayd dhib baan ku jirnaa dhibkaasi ilaahay noo dhaami karo dhibkii ka xoog badanaa noo dhaami karo ariis injo qaadale abadaadu maalinteen siyaas qaad quraan lahan cashan lahayn baalguri hadda meeqa maalin inta joogtaa leexbeeri hay'adda arladeed ka codsan lahayd hay'ad ma ku codsan lahayd oo muslimiinta inuu hani taageeraan wal una ilmoogana gundudaan wal una ka jiifan iyo guru una degna maxaa hadda ka jiifateen hadda derma oo nafirkood yaabay sidoo bolol oo meelaha laga soo qaaday aan iska fidsanaa dhulka iskaga hormarina goodadaan iska fidsanaa wax kale oo ku jiifana maal wal un haasan ilaahay abuurday meeraga magacay Haawa Xasan Haawa Xasan ka soo bartay afgooyo degmada afgooyo ka tabni biyana buri gaajin nin dheerta dhardheedi ma ala joodriyalka uu ka jiibni dhon bololen ha ka tabni dhibaata adduunka na qabati hadda inta ku noolna antana may ku koynay un oo biyo hana baraki habani laamig roogna ya islaam rasuulka beesanin qaraam ya ku koyni tabeeligan hani tuuri tabeeliga dinlan oo un kasaan hadana meeliyada baawr hani saari oo meel isku dhoobagna ya anta ku koyna din walaal muslimin sheeni islaanta oroteena sheeni hay'ad arlaadi may ku odsadee iyana intii una jiifnin sheenaan alaabka maamulnin sheenaan hunguro aagna nin sheenaan dharyaal nin sheenaan gaajaysana sariiri aanana fadaan aan ilmoona aani fadaan beesi fadaayan hadda intaan ku jirnaa marka biyahaas arlada dhagnaga faafiyo qudaar hadhan galey hadhan god iyo doon meel kasta waa marooya biyaha waa shugooyaa ilaahay amarkiisa iska jiray hadii walaalaha hay'adaan oo ilaahay wax noogu soo qaaday wax ay noo garanay wax noo la siinay si wax noo la qabsi degdegnaan nala soo gaaro arlada hay'ad waxaan ka dalbanaynaa madda koowaad waxaa jirta baahi dhibaato weyn ka jirto mid lamaad waxaa jirta guryihii biyo hoos ka soo gali waa dumi waa dhacay guriga barkiis biyo hoos ka soo gali lama yeeriga ka dhaxaaqya ka buubi ilmaha iyona wixii hadda naga sii dambeeyo anaga waxaan ku soo dhaafnay duli iyo dandaro si xumo aan ku soo dhaafnay meel oo kala jirto oo markaas biyaha dhaxaaqi oo doon naqati oo biyo iska dhaxaaq doon naqati meesha joogan ilmaha dugsiile wixii ilmo oo ninkiis cilmiisa meesha uu joogaa inta nolosha aan ku joogo waxa waaye alxamdulillah shukr taasaan ku jooga wadaadana la joognaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا حجونا دلوقتي مقالة مقدشة هالكن وماشي يكسو بركعين dadkii ka soo cararay biyaha iyo fatahaadaha wabiga Shabeelle oo ka sameeyay deegaanka Afgooye dhibaatooyin badan ay ka cabaadayaan dadka halkan joogo iyagoo marka ugu horeyso problemka haysta ay tahay hoy la'aan iyo meel ay mataqaana ku jiiftaan
dadka waxay isugu jiraan dad dhalinyaro iyo ilmo yaryar iyo hooyooyin saad aragteen waxay codsanayaan in gargaar degdeg ah lala soo gaaro waxayna dalbanayaan in deegaankii ay ka soo carareen biyaha sidii loogu saari lahaa ay ka dalbadeen hay'adda Arladi Aid inay arrintaas wax ka qabato dhammaan dadka waxay ka wada siman yihiin duruufaha markii laga soo tago waxa ugu weyn ay ka tabanayaan waxay tahay meel ay ku jiftaan ma haystaan cunto joogto ay haystaan ma haystaan halkan waxa ku soo casuumay ama ku soo dhaweeyay horjoogaha kaamka oo u fidiyay in qolkan jingada gadaasheena ku yaala ay joogaan Arladi Aid iyada u kurgalaysa arrimahaas maanta waxay soo booqatay halkan waxayna balan qaadi doontaa in xaaladaha iyo duruufaha dadka halkan jooga ay ka soo jawaabi doonto haddii Ilaahay yiraahdo